dowladda Eritrea ayaa si degdeg ah u bedeshay mowqifkeedii dhexdhexaadnimo ahaa ee ay ka qaadatay khilaafka wadamada Khaliijka iyadoo la safatay garab ka mid ah wadamada ishaya. Hore ayay dowladda Eritrea u sheegtay inay iska diideen dalab ugu yimid xulafada Sacuudiga oo ahaa inay xiriirka u jiraan dalka Qatar, laakiin waxay sheegeen inay dhexdhexaadnimadaas ay ka laabteen. Hore ayay dowladda Eritrea u sheegtay inay iska diideen dalab ugu yimid xulafada Sacuudiga oo ahaa inay xiriirka u jirto dalka Qatar, markaasna ay qaateen nidaamka dhexdhexaadnimada oo ah inaysan taageerin dhinacna kuwa ishaya. Si kastaba war ka soo baxay madaxtooyada Casmara ayaa lagu sheegay in dowladda ay go'aankaas ka laabatay isla markaana ay la safatay xulafada uu hogaaminayaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Go'aanka arrinta Khaliijka waa in loo gaaraa si taxadar leh. Eritrea ahaan waxaan si buuxda u taageeraynaa Sacuudiga iyo dowladaha kale ee xiriirka u jiray Qatar, ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xukuumadda Casmara. Warkan ayaa ku soo aaday maalin kadib booqashadii saraakiil Qatar ka socday ay ku tageen magaalada Casmara iyo sidoo kale magaalada Addis Ababa iyagoo raadinaya taageero dhinaca Afrika ay ka helaan. Sidoo kale amiirka Imaaraadka Sheikh Mohammed bin Zayed ayaa qadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Haile Mariam Desalegn, laakiin ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa u sheegay inuusan dhinacna taageerin. wadamada kale ee Afrikaanka ayaa isha ku haya xaaladda khilaafka. Dalka Chad ayaana dib ugu yeeray safiirkoodii waddanka Qatar, halka Senegal ay dhinacooda u yeerteen safiirkii u fadhiyay dhinaca waddanka Sacuudiga. Waddanka Mauritania oo xubin ka ah dalalka Carabta ayaa xiriirka u jartay dalka Qatar iyadoo raacday dalalka Sacuudi Arabia, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar, halka sidoo kale dalka Gabon uu cambaarayay xukuumadda Doha. Madaxweynaha Guinea President Alpha Conde ayaa ugu baaqay dhinacyada iskhilaafsan inay wada hadlaan, waxaana isagoo ku hadlaya magaca guddoomiyenimo ee Midowga Afrika uu ku baaqay in nabad iyo xal lagu raadiyo arrintan. dalkeena Soomaaliya ayaa sheegay in xalka uu ku jiro wada hadal ayna dhexdhexaad ka yihiin arrintan. taas ayaana keentay in Imaaraadka uu dib ugu yeerto safiirkoodii magaalada Muqdisho. waddankaasi Jalis ayaa dhexdhexaad ka ah arrintan, waxaase jira wadamo badan oo Afrikaan ah kuwaas oo si taxadar leh u doonaya inay go'aan kaga qaataan khilaafka u dhexeeya wadamada Khaliijka. dalka Qatar ayaa beeniyay eedeymo ay u soo jeediyeen xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka ee ah inay taageeraan kooxaha argagixisada. dhanka diyaaradaha, Qatar Airways ayaa laga mamnuucay dhammaan gacanka halka sidoo kalena la xiray xuduudihii dhulka ee waddankaasi Qatar, taas oo saameyn dhinaca cuntada ku yeelatay waddankaasi. inkastoo diyaaradda Qatar ay isticmaalayaan hawada aan la kala xigin ee internationalka iyo sidoo kale hawada wadamo ay ka mid tahay Soomaaliya, ayaa haddana waxaa la sheegayaa in uu jiro hoos u dhac dhinaca duulimaadyada iyo dhaqaalaha ah. dalka Turkiga ayaa taageero bini'aadanimo u fidinaya dhinaca waddanka Qatar, halka dalka Iiraan ee dhankeeda ay raashin geynayaan halkaasi. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso in xaaladda la dejiyo oo wada hadal lagu xaliyo, halka waddanka Mareykanka uu marar badan isbedelay oo uusan lahayn siyaasad hoose uu ku taageerayo ama uu dhinac kula safanayo arrinta ka taagan wadamada Khaliijka.